ciilka iga qabta waalidiinta oo aniga naftayda iga qabta waxa kamida aabba laga yaaba inuu ilmihiisa iskuulka u sii wada baabuur ku wada uu iska aamusan yahay oo maxaad u aamusantahay 5 daqiiqo ilmahaaga da isla socotaan waa inaad maskaxdiisa wax ku shubtaa waa inaad wax ku talaashaa waa inaad u sheekaysaa noloshaada oga sheekee oo taariikh oga sheekee aniga tajrubo aan sameeyay idin sheegaya bil dhalatay oo dhamaatay oo ramadaana ayaan damcay inaan 30 quraankan akhriinay iyo xagga waa baab gooni ah laakiin aan 30 mahmaahood oo dhaxal gala ina ilmahayga baro waan sii soconnaa Soomaalidu waxay ku mahmaadaa iga daba dhaha Soomaalidu waxay ku mahmaadaa waxa mataqaana Soomaali nimaad dhashay kuma dhalin aaba maxaa laga wadaa dib baan kaaga sheegi doonaa laakiin kelimada qabo waxa dhashay kuma nimaad dhashay kuma dhalin nimaad dhashay kuma dhalin waxaan ku cunin bahay maxaa la yiraahdaa waxaan ku cunin baa ulama ilmaha la baraa ma la bari kara midka mahmaada waa inaad ilmaha u doorto mid xog yani saddex la saaxiibin maxaa la yiraahdaa ila aakhiri kulli mahmaayada Soomaaliga ee xigmada leh ilmahaaga ugu celceli way adu aamusan tahay oo markaad ilmahaaga socotaan hooyo ilmaheedu wadato telefoon ku hadlayso dhig telefoonka allaha ka jabiye dhig telefoonka u sheekay ilmahaaga dhis ilmahaaga maskaxdiisa maxaad aabbo u tahay ilmahaaga aadan maskaxdiisa muthaqaf alfikri ilmahaaga waa inaad barto adduunku sidoo u socdo iyo waxa ku hareeraysan iyo maxaa dhibo jira iyo saaxiibka xun maxaa laga kulmaa iyo xagee buu ku geynayaa iyo maxaad rabnaa xageen u soconnaa cadawgaagu waa kuma bar ilmahaaga cadawgiisa bar adduunku sida looga nool yahay bar taasi waa mid muthaqaf alfikr buuxi ilmahaaga